ummadani waa ummad la soo takooray, la soo faquuqay, la takooray oo la fogeeyay. waa ummadani la soo takooray, la soo faquuqay oo la takooray oo la fogeeyay. waa mid ka mid ah hadalladii maanta ugu saameynta badnaa ee xafladii ismaamulka magaalada Berisle qiiro iyo mahadnaq isku dhafan lagana dareemayo tabashooyin qaangaadh ah oo aysan odayaashu banaanka wada keenin ayaa laga dheehan karay odayaasha madasha ka hadlay. Soomaali wana xidhay dhimashadii waa yar looga arsanay. waxaa ka dhacday maanta deegaanka Soomaalida dhacdo taariikhi ah oo ay dad badani ku tilmaameen maalin cadaaladeed. madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa isaguna xujo adag duldhigay siyaasiyiinta iyo deegaanada Soomaaliyeed ee dadkani ay ku nool yihiin. waxa uu yiri dhibca siyaasadeed oo suuqa wax weyn ka goynaya ay xukuumadda deegaanku haleeshay maanta. waa taariikh fiican oo lagu xasuusan doono maamulkii ugu horeeyay ee ku dhiiraday in beesha Gabooyo maamul la siiyo, waliba haddii mashaariicda la dhagax dhigay ay dhamaadaan dhaxal fiican oo markasta laga sheekeeyay ayay noqon doontaa ayuu sheegay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. cadaaladda ka dhex jirta ummadda waxaa looga qiyaas qaataa sida kuwa tabarta daran iyo kuwa la faquuqa wax loogu qabto. aqoonsiga Berisle in ay noqoto maamul magaalo waa go'aan ay xaq u leeyihiin shacabka Gabooyo ee ku xaqiran geyiga Soomaalidu ay degto oo idil. isagoo intaasi wasiirka madaxtooyadu raaciyay in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay in la dhiso Berisle oo ay noqoto xarun cadaaladeed, amni iyo horumar oo tusaale u noqota magaalooyinka geyiga Soomaaliyeed oo idil. magaalada Berisle ee gobolka Faafan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta looga dabaaldegay ismaamulka magaalada Berisle, taasi oo noqonaysa markii ugu horeysay ee beesha Gabooyo oo muddo dheer laga takoorayay nidaamka bulshada ay helaan ismaamul magaalo oo iyaga gaar u ah. halkani waa dabaaldegga ismaamul magaalada ee Berisle. odayaasha deegaanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo isku duuban ayaa halkan ka jeediyay hadallo taabanayay qulubta dadka goobta ku sugnaa iyo kuwa Soomaaliyeed ee ka dheera ee aynu inagu gaarsiinayno. qiiro iyo mahadnaq isku dhafan lagana dareemayo tabashooyin qaangaadh ah oo aysan odayaashu banaanka wada keenin ayaa laga dheehan karay odayaasha madasha ka hadlay. dad badan ayaa sheegay in tani ay tahay bog cusub oo bulshada Gabooyo kaga mid noqonayso nidaamka dowladnimada ee deegaanka Soomaalida. taariikhda waa markii ugu horeysay ee deegaanka Soomaalida beesha la haybsooco ee Gabooyo ay xukuumaddu u garatay in meel la fadhiisiyo oo dhulka deegaanka meel ka mid ah ay salka dhigaan, ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha deegaanka. deegaanka Soomaalidu waa markii ugu horeysay ee beelahan la haybsooco ee Gabooyo ay xukuumaddu u garatay in ay meel fadhiisiso dhulka deegaanka meel ka mid ah ay salka dhigto oo maamul yeeshaan. dadaalka madaxweynaha xukuumaddiisa iyo golaha wasiirada ayaan uga mahad celinaynaa ayuu intaasi sii raaciyay. oday kale oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa isaguna sheegay ummadani waa ummad la takooray, la soo faquuqay, la takooray oo la fogeeyay. dhaqanka lagala dagaalamay iyadoo diin loo adeegsanayo, iyagoo dad islaam ah, dad sunni ah, dad isku luuqad iyo isku diinba ah ayaa haddana loo diiday guurka, ayuu yidhi odaygaasi. waa ummadani la soo takooray, la soo faquuqay oo la takooray oo la fogeeyay oo runtii dhaqan lagala dagaalamay kii diin loo adeegsanayo, iyagoo dad islaama oo dad sunni ah oo isku luuqad la yahay, isku diin la yahay, wax lagu kala duwan yahay ayna jirin, haddana guur loo diiday. siyaasadda iyo dhaqaalahana haba sheegin. maanta farxad weyn bay noo tahay in maamulka deegaanku uu ku dhiiraday in maamul u gaara beeshani la siiyo, ayuu ku nuuxnuuxsaday mid ka mid ah odayaasha dhaqanka, isagoo intaasina sii raaciyay in ay aad ugu faraxsan yihiin soona dhaweynayaan iyadoo shanta Soomaaliyeed aysan jirin maamul ay u gooni ah beeshan Gabooyo in ay ku dhiiradeen maamulka deegaanka Soomaalida. madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa isaguna xujo adag duldhigay siyaasiyiinta
iyo deegaanada Soomaaliyeed ee dadkani ay ku nool yihiin. Waxa uu yidhi dhibco siyaasadeed oo suuqa wax weyn ka goynaya ayay xukuumadda deegaanku haleeshay maanta. Waa taariikh fiican oo lagu xasuusan doono maamulkii ugu horreeyay ee ku dhiiraday in beesha Gabooyo maamul la siiyo. Weliba haddii mashaariicda la dhagax dhigay ay dhammaadaan, dhaxal fiican oo markasta laga sheekeeyay ayay noqon doontaa, ayuu sheegay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Dhanka kale waxa uu xujo adag hordhigay geyiga Soomaaliyeed oo idil. Waxa uuna yidhi beeshan ku dulman guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed halkee noqon doonta meesha labaad ee maamul iyo maamuus laga siiyo beesha Gabooyo, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay madaxweynaha deegaanka. Magaalada Bariisle waxaa deegaan ahaan dega beesha Gabooyo oo muddo dheer caan ku ah xirfadda gacanta, farsamada iyo adeegyada bulshada, balse inta badan lagu takoori jiray dhaqankaasi maamulka iyo siyaasadana laga qadiyay. Tallaabadan ayaa u muuqata mid xukuumadda deegaanku ay ku muujisay in qof kasta oo Soomaaliyeed xaq u leeyahay maamul, matalaad iyo horumar iyadoo aan loo eegin asal, qabiil ama awood dhaqaale. Go'aankan lagu aqoonsaday Bariisle inuu noqdo ismaamul magaale ayaa lagu tilmaamay mid xoojinaya cadaaladda bulshada iyo mideynta dadka deegaanka. Arrintan ay shacabka deegaanka Soomaaliduna aad u soo dhaweeyeen ayay ku tilmaameen mid waa cusub oo u bariyay deegaanka ah. Wasiirka madaxtooyada ee deegaanka Soomaalida ayaa isaguna bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray fariin micno weyn xambaarsan, isla markaasina uu u diray guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed. Waxa uuna u dhignaa hadalka Dr. Xuseen Qaasim sida tan: cadaaladda ka dhex jirta ummadda waxaa looga qiyaas qaataa sida kuwa tabarta daran iyo kuwa la faquuqa wax loogu qabto. Aqoonsiga Bariisle in ay noqoto maamul magaalo waa go'aan ay xaq u leeyihiin shacabka Gabooyo ee ku xaqiran geyiga Soomaalidu ay degto oo idil. Isagoo intaasi wasiirka madaxtooyadu raaciyay in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay in la dhiso Bariisle oo ay noqoto xarun cadaaladeed, amni iyo horumar oo tusaale u noqota magaalooyinka geyiga Soomaaliyeed oo idil. Shacabka Gabooyo oo leh xirfad iyo farsamo ka sarreysa inta badan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa fursad u heli doona inay wax badan qabsadaan oo ay soo saaraan jiil lafahooda Soomaali iyo aadanaha kalaba anfaca. Sal la helaa, tala la helaa, ayuu kusoo gabagabeeyay hadalka wasiirka madaxtooyada ee deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Qaasim. Erayada wasiirka ayaa si toos ah u muujinaya in maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu uu doonayo in uu dhiso deegaan ay bulshada oo dhan isku mid ka yihiin xuquuqda, adeegyada bulshada iyo maamulkaba. Falcelinta tallaabadani ayaa ahayd mid aad u xooggan. Dad badan oo ka soo jeeda beesha Gabooyo iyo guud ahaanba bulshada deegaanka Soomaalida ayaa ku tilmaamay guul soo daahday, waxayna sheegeen in tani ay calaamad u tahay xukuumadda doonaysa in ay beddesho aragtidii hore ee kala sarreynta bulshada iyo isxaqiridda. Bariisle oo hadda loo aqoonsaday ismaamul magaalo ayaa loo arkaa inay noqon karto tusaale cadaaladeed oo ay magaalooyinka kale ee Soomaalida kaga dayan doonaan deegaanka Soomaalida si loo helo bulsho midaysan, xor ah, isla markaasina dhisan is-ixtiraam iyo wadajir ku wada nool. Tallaabada uu qaaday maamulka deegaanka Soomaalida ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisu waxa ay noqotay fariin xoog leh oo ku wajahan bulshada oo dhan. Fariin tilmaamaysa in cadaaladdu aysan ahayn hadal balse ay tahay ficil muuqda. Intaasi ayaan jeclahay daawadayaal inaan qodobkeena kusoo gabagabeeyo. Ku mahadsanidin la socodkeena.